السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي بأدي السلام يا دعوة شقالي ميل كستود أدوينها كتشوكتان halka adiga la socoto Axmed Afjo official ku soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalka amaanteedii ku talagal maanta safar baa leeyahay soo duceeya waxa safar loo yahay berbera oo waqti aad u dheer ay ugu dambeysay ayaa aan tagi doonaa maanta insha Allah hadduu alla ilaahdo waxaan rajeynayaa muuqaal aad u qurux badan ka soo qabto kulay hadalka wada dejinaya wada aragtaan kulay waxa taaganta waqtiga aan bixi lahaa aan wada socona asxaabta qaaliga hadda la bixi doonaa sidaas iyo aad hadda waxa la soo gaaray supermarketkii saan horabadi ku sheegay safarkaygu maanta waa berbera soo duceeya reer berberna halkan baan ka salaamayaa waqti aad u tiro badan waxa dhahdeen ninkii Axmed Afjo muxuu noogu iman lahay laakiin maanta waa idin soo socdaa waqti baad u qurux badan baa wada qaadan doonaa wax laga qaban karo malahan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay alla nabad ha nagu geeyo berberna insha Allah waxa rajeynayaa team Axmed Afjo inaan vlog aad u qurux badan ka soo diyaarin doono waqti aad u qurux badan gudaheeda aan ku qaadan doono in marshaan dilay حرمكي بربرتاي وستاندركم ميدان بدانسيك كالكعكا حرمكي بربرتاي سفر كان هدو ينوب بلامي دونا إن شاء الله حدان قد قلي دونا وري ليش كبنتاي بحسن الكرديسان لا waxaan soo gaarnay doox weyn oo ku yaala tuulooyinkaas marka loo socdo berbera oo la raado Carburuq وري ليش كبنتاي waxyaabaha iigu la yaabka badnaa intaan safarkayga ku guda jiray waxa kamid ahaa buurtan oo ku qoran yahay magaca Eebehen Allah oo ku qoran yahay saad falaartaba uga jeedaan. A few moments later. Bartabahan figi xeebta ayaa ay soo gaadhay alxamdulillah finally waa soo gaarnay anagoo nabad qabna aad ku soo dhawaada muuqaalkeeni aad horeba ula socoteen waxa la soo gaaray berbera alxamdulillah rabbil alamin waa la nastay jawi qurux badan baa la iska qaatay maantana waa cusub iyo maalin aad u qurux badan baa noo bilaabantay hadda waxaan u sii jeednaa dhankaas iyo badan jawi aad u qurux badan ku soo qaadan doonaa leeyahay berbera waa la qurxiyay aad iyo aadna u shidantay soo booqda idin leeyahay insha Allah taxriis aad u qurux badan ku soo qaata kulay anigana markayga koowaad noqon mayso waqtiyaad qurux badan baan ku soo laaban doonaa dhammaan taageerahayga iyo bulshooyinka ku noolba aad baa u salaamaya waxaan rajeynayaa maantana inaan waqti aad qurux badan ku qaato muddo yar kooban haddii alla yiraahdo waan joogi doonaa muddadaana falowga aad qurux badan baad igala kulmi doontaa meelo far badan oo qadiimiyana waan soo mari doonaa muuqaalka waxyaabo far badan baad maanta ku arki doontaan aan isla socon kuleel way dhaafto waxaan hadda waxa la soo galay gaadhigii waxaan loo sii jeedaa dhankaas iyo badda muuqaalkan waa muuqaal kuleelkiisa wata laygtiina kuleelkeena wadato dad fara badan baa is odhanaya waa maxay ninkan kuleelkan uu sheegay Axmed muu wareeray sharkiisa baa isku raxaayay waa raaxaysta war waxani hawo ma saaxiibayaal waa hanfi kuleel baa saair waxay kuleel wax kale jawga aad iyo aad buu macaan yahay saad u jeedaanba waxa ka dhacaysa meesha neecaw inabaan caadi ahayn hanfigi waa ka soo dheeraanay waana ka soo baxnay hadda waxaan u diyaar garoobi doonaa doonteedii qalabkayga baan xidhan doonaa diyaar ahaado kuleeydu kuna shaashadu ma diyaar ka tihiin halkan baan fanaanadiin iyo jaakada la xidhan doonaa idin ka soo tuuri doonaa waxaan u talaabi doonaa garanaysa isdeed kale ama meel kale aan aadi doonaa waxaan dalxiisaad qurux badan baan soo qaadan doonaa hadal badan ku daalin maayo naacad wata waxaan maqli jiray hanfi iyo kuleeliyo aad iyo aad hadda waxaan la hadlayaa wiilkii iga kareenaya doonta waxaan taaganahay aniyo doontaas ay igu aaminayeen badda haddii aan ku dhex dhaco ii soo dir saaxiib ambalaas no laguma soo dirayo taagan nin adag baa tays adkee
war saaxiibadaas ay ugu soo diinay ilaahay ka yaaba intaas iska kaftan weeyaan saaxiibayaal welcome baad ilaa asxaabta qaaliga ku soo dhawaada haddaan gudaha u gali doonaa doonta هذه هذا قلب والله قلب قاتي شاكدي والله قاتي ما قلت وابلان من النظام قال دون عذر كويس ديارني قاعد مدمجا هذا قرح بدل ما قادن دونا وقتي waa goor iska duhura waa goor iscalcad oo iska kulushahay laakiin hawada badda inaba caadi ma only guduhum baa wax kala oo marka barbar gudaheeda la joogo uun bay kuleeltaa laakiin halkan hadii la soo gaaro qabowgaaga iska jaqi doontaa qaybta ma iska saxan doona waxaan soo dhaxbartamaha badda la soo gaaray magaaladu waa laga soo dheeraaday saaxiibayaal dhinaca waxa naga xiga markab inabaan caadahayn waa kiina qaadi doona saan Norway ku sheegay oo nageyn doona wadamo aad u tiro badan si aan ugu soo dalxiiskayga waa mid aad u dheer intana kaliya ta kuma koobnaan doon ahaya ودر مركب وان مقلب والمركب كان انتو باحد لقيا waxaan maqli jirnay injineer magaalada ama injineer guryaha bal injineerka markabka hagaajinay ninka halka saaran ilaaga waa imtixaan carabtu kullu darbatin waa ku carabtu yiraahdeen oo u dhiganta waan idin salaam intaas iska kafta weyn warninki maanta waa iska kaftamaaya waxaan rabnaa hadda imka doonta halka taagan inaan soo aragno ama qaybta kale aan soo aragno wali waa noo socda dalxiiskaygii jawigii aad ku quruxda badnaana wali waa ku dhax qaadanaa badweynta berbera in the house wax laga qaban karo malaha wallahi dhulkaaga hooyo mar walba si qurux badan baad ugu dalxiisaysaa ninka kaliya tababarni iyo tababaro uu qabo dartood badda saa ugu socday xataa yaxaas walaa kalluun midna laga baqan maayo waa la tababaran saaxiibayaal ma garata only YouTube-kan ma isku baranay laakiin aan waxaan ahay ciidamada badda ma garata sidaas iska badan baan sameeyaa maanta kaftamku waa furan saaxiibayaal maadaama joogu aad u qurux badan yahay dalxiiskuna dalxiiskii hore aynu qaadan jirnay aanu hayn oo aan badda iskaga dhex mushaaxayno waqti aad u qurux badan aan ku qaadano barbarana muuqaalaad qurux badan baad idin soo diyaarin doona hadduu Allah weyn kale waana وحوجا صور كوجلا ما دام أو مقرنة صار هذا كده الحيس سان هل كمان صوران كده حكي لي تونا والله ضد كتاريبية هاو هذاك بيقبتين شهادة مدين شهادة ما لا يرير أنا قوم مرينا هيا رفض متيسنا هنا بالكور هذا دوم بعلق صارنا والله أنا ذا ليف الويا وعندي لأنه على سكيل على بالك ساعد ما قلت هذا نفكر سكوب تنا تحت باله
la dabaalo caashiqa. hadda waqti aad u qurux badan baa la soo qaatay waa la laaban doonaa waa la soo wareegay waxaan ku laaban doonaa meeshii aanu ka soo kicitinay markii hore ya halkaas ku laaban doonaa muuqaalkeena weli waa socon doonaa intaas kuma gabagaboobi doono ahey waxa la soo gaaray goobtii lacag dhigan lahaa ama soo lagu soo qaboojin lahaa baash waxoogaa yar baan dabaalan doonaa hadduu alla idhaahdo oon yar dabaal ku qaadan meel yar aan ku dabaalan hadda raadinaa jawi aad u qurux badan baan ku soo qaadanay gudihii haddana bannaankii baa la soo gaadhay bannaankan jawi yar aad u qurux badan ku soo qaadan doonaa indhihii baa yaraaday sida kuleyl daraaddeed indhihii baa yaraaday waddankaygiiyo Somaliland wadnahaygiiyo Somaliland adigaan waliyo waddankaygiiyo wacad kuugu maray waddankaygiiyo oh my god A few moments later. wiif jug intaas ka kaftan weeyaan ku soo dhawaada muuqaalka gabagabadiisii waa la soo daalay hadda shower la soo qaatay waqti aad u qurux badan baan ku soo qaadanay badiisa aad horeba u socoteen jawi aad u qurux badan waan soo qaadanay waxyaabaha igu leebka badan ee berbera aan ku arka waxa kamid ah niyo wadada markaad socoto hanfibaas ku leefay laakiin badda markaan tagay waxaan ismooday inaan Hargeysa joogo qabowga iyo neecawda aad ka qurux badan la ka dhacaysa muuqaalka xiga waxaan rajeynayaa inaan idinku soo kala bari doono berbera iyo xaafadaheeda kulli halkan hadaad soo gaadhay like-tiisa qarxiya channelkan insha Allah subscribe iska saara waxaan rajeynayaa muuqaal dambe oo xiiso leh intaan ku kulmayno commentiga kula wadaag wixii aad jeceshiin berbera inaad ka soo tuso muuqaalka xiga intaan ku kulmayno sidaas